السلام الله عليكم أصحابتي qaaliga soo dhawaada waa Xaydar Fekis dabcan sida aalaba iga barateen waxaan rabaa insha Allah inaan result ka bixiyo ama aan review ku sameeyo lacagihii isbuucii dhaweyd lacagihii aan iina soo wadaagay xagayga maxaan lahaa telegramka ama channelka youtube-ka dabcan waxay ahaayeen adiga lacago ku dhow 5 lacagood dabcan lacaga qaarkood way dhaqaaqeen qaarkood setup qurux badan nama siin qaarkood yacni waxayna siiyeen waxa la dhaho trade aad u qurux badan qaarkood correction ay ku jiraan usbuucan iyadana waa la sugayaa dabcan haddii aan dib ugu laabto lacagihii usbuucii hadda ahaa dabcan haddaan dib ugu laabto videogii qaabkaan u sharaxnay insha Allah anagoo dib u eegayna insha Allah aniga waxaan gaadaa waxa weeye adiga 5 lacagood baan gaadaa dabcan lacag dib ugu laabto lacagihii isbuucii hore isbuucii lacagtan yani badankood aan soo diray badankood way dhaqaaqeen ka hor yani before iyo after labadaba waa soo diray ama yani waa in la soo wadaagay dabcan inaad ka faa'iidaystay baan rajeynaya insha Allah kuwan aan isbuucan hadda insha Allah soo gudbi doono waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan DXY da means yani waxaan rabnaa inaan entry ka raadino lacagta USD marka waa inaan lacagta DXY USD iyaduna because labada lacagood na inay isku yihiin inay soo laabato wajahada ama ay different direction يعني لبضوا إن شاء الله أي سكويين أما opposite direction بالله طبعا دان دي بقول لابتو weekly time frame كا إنكستو أرجيني إن شاء الله بدك قرقو السويين طبعا دان يعني أن جيو مشى pointiga weekly time frame كا نخصيه إن هذا نوصل يعني لسه طبعا وجد لسه طبعا from weekly to 5 minute time frame وإسكو حيرين طبعا marka waxaan rajeynaya insha Allah inaad ka faa'iideen qaabka la isku xiriyo waxaan rabaa insha Allah inaan soo dhigi doono insha Allah waxaan rajeyn doonaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah insha Allah inay timaado correctionka hadda ku jirta soo rajeynaya inay manayso meesha insha Allah kadibna bartaan kala celiyo overall weekly ama trade token ay taamado de wax wali dabcan haddii aan caadi ahaan aan ka dhigi lahaa bilaa analyze reason lay okay da descending pattern filia maxay tani noo sheegaysaa in lacagta DXY lacagta euro USD iyaduna waad u jeedaa dabcan qaabkaasay samaysay all the way abi aad lacagtana yani euro USD iyadoo inverse ayay samaysay dabcan qaabkan oo inverse ay samaynayso dabcan ujeedaan waa filaya ujeedaan waa filaya dabcan lacagtan iyadoo inverse dabcan all the way inay soo dhacdo dabcan correction marka ku soo dhacdo correction timaado kadibna all the way ay jihadaas ka si aad dabcan euro USD qaabkaasaan ka sugayaa insha Allah qofkii halkan aaday correction ka sameeyo dabcan hadda meeshii ay joogto waa meeshii aan isbuucii hore يعني وتلمامي كلا وضنط إن شاء الله هذه هالكاسي جوكتا دبعا والتريق قروح بدن بها كان غسيسي دبعا is position so هذا ماشي جوكتو حلقا إن شاء الله وحلقة في ليا إن أي تريلينج كلابتو أو أي دول ولو كلابتو يدو قاب correction نكسو جفتي مددن so تايدا وقادن كرا قف إلا وقادن كرا دول ولو كفوس وقادن كرا طبعا ما يسيسي تايب فلاج هذا كل شيء طبعا ويبحث بلتسن تايب مركي الأجو نت مركي structure كان قصة مسو تعت طبعا وسيدس وحن كرا دي حاب مهمة إن يعني مرولبة حوجة سارتين قابكي ميشان كنت معدو أما قابكي هلا كان يكون تباتي طبعا أوكي هذا تجنو حيث ماشي عن جارتي جبت بقولها waxaan wakanaa xagnii maraysay markii aan filaqaynay lacagtan iskana lay maraysay dabcan waxaa dhacay steve flag oo meeshan ka dhacay aniga ma aan qaadan steve flagan all the way qofkii ka qaadan lahaa jibinta steve flaga
way lacagtan wuxuu ka sameyn lahaa wax leeya faa'iido la taaban karo dabcan 3% ay dhaqaaqday waan qaadan dabcan way dhaaftay tan dabcan laakiin gadaal baan uga faa'iidaystay lacagtan aniga waxaa dhacay meeshan markaan ogaaday in meeshan timid dabcan waxaa dhacay wax la dhaho dhacay dabcan halkan structure qaab noocan ay ku timi all the way flagaas aan ka qaatay aniga dabcan anoo raacay ilaa 9 rulkan soo jebinta ay soo jebisay trailingkan dabcan ayaan qaatay bas haddii aan halkan trailer saaro dabcan noqonaysaa the package of this يعني waa retestigii dambe ee trailingka lagu screeniyay .5% adiga waxay hortay 2.9% dabcan waxaan qaatay tradekaas dabcan oo trade high probability ahaa okay maxaa ka dhacay halkan markay tagtay all the way ay soo laabatay maxaa dhacay another structure ka sameysmay because structure kan 9 rulkiisa waa la buuxiyey ogow suuqan markaad isticmaalaysid marka structure-ka suuq waliba markii structure-kiisa la dhamaysto waa kullama another structure ka sameysmo kaba suuqaad oo kale هذا lacagtan oo kale qaab noocan ay kusoo socotay dabcan waxaa dhacay in structure-ka la jebiyey haddana retest lagu sameeyey haddana la buuxiyey 9 rulka structure dabcan intuusan soo gaarin structure-kan laba midkood uu sameyn karaa intuusan soo gaarin 9 rulka laba midkood uu sameyn karaa inuu suuqu meeshan correction kasoo bilaabo structure kale uu bartaa ku tago kadibna uu kusoo kala wareego ama inuu impulse ku dhaqaaqo suuqa uu sii jabsado haddana korkiisa uu structure kusii sameeyo kadibna uu jihadiisa saxdaa siyaado ama jihada baygaa uu siyaado labadaa mid noqonaysa marka maxaa dhacay lacagtan fiiri halkan markay maraysay lacagtan waan eegayay markay saartay dabcan halka samaysay waxay ka samaysay correction all the way inay 90 rulka correction ka tagayso waa ogaa 15-minute time frame maxaa dhacay marka waxaa dhacay suuqii inuu all the way up aaday haddana uu soo laabtay dabcan wuu soo laabtay retrace aan sugayay halkan retrace ka sugayay inuu sameeyo wax la dhaho aniga yani soo laabashada ma qaatay laakiin laba mid kada noqon lahayd inuu soo laabto correction uu bartan ka galo aan correctionkan ka qaato ama in uu retrace ku sameeyo wax la dhaho trailing kadibna qaab correction bartan ka bilaabo correction sameeyo walkaas structure-kaas iga samaysmo kadibna all the way aan lacagtaas down usoo dhaco laakiin maxaa dhacay all the way maxaa dhacay lacagtii all the way waa la soo laabtay haddana all the way waa la laabtay maxaa la jebiyey double topiyaa la jebiyey haddaad eegtid wax loo 1 hour time frame-ka maxaa dhacay halkan maxaa dhacay eegtid wax loo weekly time frame-ka haddaad eegtid 1 hour time frame-ka means waa double top laakiin haddaad 15-minute time frame-ka means wuu la baxay xoogaa so waa taqaanaa oo badinaya qaabka double topka looga xisaabtamo markaad suuq trailing saaraysid oo kale ama support level markaad saaraysid oo kale waxaa laisku qabtaa wax loo week to week laba body ama week to body so hadda maxaa meeshan ka jira haddii aad 15-minute time frame ka tagtid oo filter wargatid means waxa waaye waxaa isku qabatay wax loo body to week لكن 1 hour time frame markaad tagto lower time kullama high time frame ka tagtid means
wuxuu ku noqonaya wax loo yani week to week so that's it maxaa dhacay suuqani all the way wuu soo dhacay suuqani ma aan qaadan because halkan wax ka dhacay loo qallaaso qalaasaa ka dhacay double topkii uu jebiyey one hour ten bay batagtiina double topkii caadi uu double top sameeyey haddana all the way wuu soo dhacay dabcan ka hor intaan halkan eegin xaggan qaab noocan oo kalaa ka dhacday fiiri qaab lamidaa ka dhacday haddaad tagto 15-minute time frame-ka eeg think was same waxa bartan ka dhacay iyo wax bartan ka dhacay waa same taas soo qaadid isaga soo jirtid dabcan barta keentid kana soo jirto barta keentid means waa same waxba ma kala duwanaa waa isku structure maxaa meeshan ka dhacay eeg inay isku qaab yihiin eeg maxaa dhacay inkastoo ay saas kala wen yihiin laakiin waa isku qaab maxaa dhacay halkan correctiona dhacay dabcan xagee la tegay 9 rule correctionka la tegay oo 9 rule correctionka la buuxiyey xagee noqonaysaa halkan okay maxaa dhacay halkan correctiona dhacay 9 rule correctionka la buuxiyey maxaa dhacay all the way waa lasoo laabtay kadibna toos baa loo laabtay waxa la buuxiyey waxa loo double topkii same was same structure dabcan haddaad suuqa dhex geshid muddo badan yani wax waliba waad arkaysaa wax waliba oo suuqan ka dhacay waad arkaysaa dabcan maxaa dhacay maxaan ogaaday lacagtan waxaan ogaaday in lacagtan ay haygii hore cuntay kadibna retrace kusoo samaysay kadibna hayga cuntay retrace kadibna jabsatay lacagta markii aan ogaaday inay sell tahay waa markay jabsatay levelka markii jabisay aan ogaaday lacagtan inay lacag sell tahay okay tamam maxaa dhacay structure meesha ka samaysmay wal xun waxaan ka sugay structurekaas inuu qaala ka tago dabcan kadibna bartaas aan kasoo qaato ma ii dhacin dabcan all the way farahan ka qaaday maxaa dhacay 9 rulkay tagtay dabcan structure kale buuxsatay qaab correction ay bartan ku tagtay eegtay structurekan okay waa sugayay intaas trailing bay saarnaa so trailingkaas ay jebisatay dabcan trailingka bay jabsatay so maxaa dhacay lacagtan maxaa dhacay marka waxaan ogahay inay soo jabsatay trailinkii dabcan ay correctionkan dama inaan ka qaato because you know mar waliba waan ogahay haddii my trailing soo jabiyo in means yani lagu retest grain doono ama flag ama large flag ha ahaado ama small flag ha ahaado in la retest grain doono waan ogahay dabcan retracekii dambe waa kan laba taawash uu sameeyey dabcan all the way momentum baa soo dhacay marka dambana that 1 hour time frame kadibna waa la soo jabiyey all the way haddana si momentum baa lagu soo dhaqaaqay this is waa flag aad u qurux badan dabcan flag aad u qurux badan 9 rulka halkan waa ka 9 rulkii haddana impulse baa lagu dhaafay waxaa keenaya waxa weeye suuqa muddadan uu kusoo jiro waxa loo correction impulsive u dhaqaaqay correctionkan uu galay dabcan correctionkan marka hore waa u maleynayay inuu yahay correction ab loo celin karo way noqon karaysa because you know here is a correction because qaab correction aan ugu soo jebiyey maxaa weeye sababta iga difaacday waxa weeye suuqani halkan wuxuu ka sameeyey waxa la double top kii uu tegey means structure-kan wuu dhammaystiran yahay laba taabasho plus double top with double top yani double top with double top waxa mini double top badan baa ku jira meesha means laba double top mini iyo large double top kan dabcan waxaa dhacay all the way waa la soo yaacay dabcan qaab noocaasaan uga faa'iidaystay lacagtan iyadana dabcan ilaa haddana way furan tahay lacagtan arjiniya insha allah after time frame ka eego inay retest ku samayn doonto trailingka dabcan way ku samaysay hadda waxaan rajeynayaa insha allah levelkan uu hadda yaalaa dabcan aniga SL-kayga xaggan uu yaalaa all the way
so waxaan rajaynayaa insha allah in flagan ay dafi doonto kulama ay ka nocontana insha allah anasilka ay ka heli doono halakada waxa ii xiran ugu yaraan adiga 2.5% laga wado yani 2.5 or 6 something xogaa pip meeshay ku qorantahay how many pips 80 something at least got there 70 wide because 25 marka lagu daro waa 70 so waxay ii xiraan 2.5% ani percent ku xisaabtan dabcan taasi waa taas haddaan u gudubno lacagaha kale dabcan iyo qaabkii aan uga taxadiray riskigooda aan dib ugu laabto videogii lacagtaasi waa lacagtaas waxaan u gudbaynaa lacagta euro ncd euro ncd iyadana waxaan ka sugay waxa euro ncd lacagta tagto this level inay tagto halkan inay correction ka gasho waayo laba taabshay samaysay haddaan eegno forward time frame-ka dabcan haddaan dib ugu laabano daily time frame-kan leeyahay dabcan waxay timi meel double bottom timi hoose all the way abaa loo celinayaa dabcan waxaan ka raadinaa waxa weeye waa sidaas haddaan u gudbo lacagta طبعا واتنا يورو ncd طبعا ويتغتنا انترولكي ميشان كسويني لكن محي كسعوتي قاب والية كسعوتي طبعا direction all the way up يعني سوق فولحن أو أقلية كسعوتي طبعا محي سميسي هلكن وحن كسوي وحوي لعتن هلكن مركي مريسي وانا سعودي because وحن يعني هروسو الشيقين ستيف فلاك سميني سو طبعا سانت فيديو قد يعني دي ورادي معسا kadibna laba double bulumansha ka samaysa kadibna all the way ay abaadayso maxaa dhacaya so lacagtan waan ka baqay because sababtan uga baqay waxa weeye haddaad eegtid lacagtan maxay samaysaa halkan laba taabashii bartan ka samaysay dabcan haddaad caadahan eegtid laba taabasho waadaxa waay okay halkan maxay ka samaysay waxa la dhaho structure nitrolka structure-kay timi waa halkan waa sax laakiin qaabkii hadda ku socotay yani after nitrolka qaabkii ku socotay qaab correction ay ku socotay dabcan waxaan ka sugay waxa weeye inay bartan timaado qaab corruption bartan ku timaado kadibna all the way ay abaado laakiin maxaa dhacay all the way waa la jebiyey structure bartan laga sameeyey waa la soo dhacay nitrolka structure ka yimi another structure kale la sameeyey all the way waa la sii dayay because maxaa isku buuxiyey meeshan another large structure or test wax lagu sameeyey wax loo this mine channel so aniga uma aan bogin lacagtan waxaan ka qaaday because yani ma rabin inay ku soo laabto because rule yani halkan waxaa ku jira wax dhaho wax aad muhiim ah because inay structure ka dhamaystay inkastoo ay double bottom samaysay laakiin double bottomkan waa inay ku taabataa wax dhaho yani edge ay ku taabataa yani waa cirf inay ku taabato waa laakiin maxaa dhacay firi waxaa jira wax dhaho haddaad double bottom sugaysid double bottomka suuqu waa in uu ku taabtaa afka hore ee yani structure-ka dabcan qaab noocan oo kale ah fiiri inuu ku taabto waaye means lacagtani jihadeedu waa up laakiin hadduu ku taabto waxa loo qaab noocan oo kale ah fiiri yani futada dambe hadduu ku taabto structure means waxa waaye lacagtani down ay aadaysaa double bottom cost ay imanaysaa taas waa inaad ka taxadirtaa mar waliba waa inaad maskaxda ku haysaa ogow suuq waa inuu ku taabtaa edgiga yani afka ugu horeeya ee janaalka reversal means this continuation hadduu kan ku taabto means continuation means maxaa u qaatay continuation mar waliba waa inaad maskaxdaada joogto dabcan de kullama aad suuqa sii dhex gashid kullama yani aniga unba wax ka baranaya suuqa noocaas yani aan u gelin maxaa dhacay suuq wuxuu ku taabto wax loo impulse soo sameeyey correction uu bartanka galay waxaan sugayay inuu halkan ku yimaado xal hadduu halkan iman lahaa haddana yani uu candles ka samayn lahaa reversal ah means taas waa macquul hadduu samayn lahaa loo structure kala celinaya macquul laakiin lacagtan ma aanan bogin marka hore bas fiiri xaggan
inay bartan timaado all the way barta ka jiha bedelato dabcan baa sugiyey so ma aysan dhicin dabcan ana faraha ka qaad inkastoo united dhulkii tagtay aan ogaa united dhulkiis inkastoo aan ogaa xitaa in ay joogto wax la dhaho head and shoulder dadka head and shoulder ku tirageliya dabcan head and shoulder waa dhex right shoulder bay samaysay dabcan all the way they see this okay haddii xataa aad eegtid fiiri ogow suuqa mar waliba structure-ka yarka wuu kala celin karayaa suuqa haddii aad halkan eegtid fiiri lacagtan maxaa laga sugayey lacagtan waxaa laga sugayey waxa laho meeshan waxa kasoo shaxlo pattern dabcan haddaad eegtid pattern ay ka samaysay dabcan all the way maxay ku timi misna another pattern kale samaysay dabcan okay xaggan maxay samaysay waxa laho pattern means pattern-kan waa reversal double bottom hoos ay joogtaa lacagtani maxay ku taabatay edge ay ku taabatay ogow kullama suuqu meeluu edge ku taabato meel double bottom ama double top means lacagtaasi waa reversal laakiin hadduu ku taabto futada dambe ee yani generalka ama structure-ka means lacagtaasi waa yani waa lacag ay wax u dhiban yihiin dabcan oo ma aha lacag sii soconaysa ama jihab belinaysa lacagtani waa lacagtaas sababahaasa laga baqay sababahaan uga baqayna waan ku tusay dabcan reasonkaan uga baqayna waan ku tusay طبعا haddaan u gudbo lacagta xigta insha allah GBP NZD GBP GBY طبعا GBP GBY lacagtan usbuuci hore dadka entry bay siisay aad u qurux badan dabcan aniga ma aan qaadan oo iguma jirin wajlistigayga dabcan laakiin usbuucan baan rajaynaya insha allah inay trade-ka wax badan ka faa'iidaysto dabcan waxay samaysay lacagtan dabcan meeshan ka sugeyn inay timaado oo qaab correction aan siiso waxaa kaloo ku jiray another structure kale oo suuqa kala celin karaya because hadda halkan eegtidoo kale qaabka correction ay ku socoto way ku socon karaysaa oo qaab channel yar ay samayn kartaa kadibna all the way jihada sii aadi kartaa because halkan haddaad eegtid dabcan structure-kana ku jira dabcan ninth look structure-kay tagtay head and shoulder inverted ay noqon karaysaa dabcan lacagtan ma ay yani waafaqeen يعني rule كاني because هلا كان correction ay isku soo dhaadhacday correction kullama correction يعني passive ka sugayna kadib correction ka sugay laakiin correction ay ku soo dhaadhacday means waxay noo cadaynaysaa lacagtani inaysan jihada salkaas u aadin يعني ugu badnaan halkan ay tegi kartaa haddii ay correction ka badiso waay laakiin muhiimadan waxay ahayd in ay passive ku soo dhaadhacdo correction ay gasho kadibna all the way ay down aado laakiin ma aysan dhacin correction kii way sii waday dabcan lacagtani laba taabasho plus double top-kii hore ee xaggan aan ku arkayno mind structure-ka mind time frame-ka dabcan oo structure-kana dabcan awal waxay dalka aad tagto laakiin waxaa la rabaa lacagtan in la sameeyo waxa weeye pattern weyn xagee horta meeshan kaaga muuqda dabcan insha allah waxaan rajaynayaa insha allah inay dhamaysto watana lacagtii GBP GBY haddii maraysay markaan falanqeynayno lacagtan waxay maraysay halkan ay maraysay this position ay maraysay markaan falanqeynayno lacagtan so maxaa dhacay waxaan sugaynay inay impulse kusoo dhaqaaqdo laakiin kumaas aysan soo dhaqaaqin because qaab noocan oo trailing nagu saarnaa impulse kusoo dhaqaaqdo correction kadibna all the way see this laakiin ma aysan dhacin maxaa dhacay inay all the way up aado hortaas buuxsato wax loo double top-ka waan ogaa double top-ka inay soo dhacayso laakiin maanan qaadan because yani lacagtan waan ogaa inay jiha bedelatay because markay correction sii waday because halkan inverted shoulder baa ka dhacay kadibna all the way lacagta waa la abgeliyay inkastoo ay laba momentum ku dhaqaaqday structure fall xun dabcan waa la qaadan karay structure-ka laakiin aniga ma aan rabin ma qaato because saaid bay u furxun tahay lacagtan daaleego waayo waa ogaa double top-ka inay tegayso macquul inay halkan ay kasoo laabanayso hadda maxaa lacagtan ka sugayaa inay halkaa tagto kadibna all the way ay soo dhacdo hadday high probability tahay lacagtan dabcan wataasaa lacagtani haddaan u gudbo lacagta xigta qaabkay ku tagto celiyey oo mind structure lacagtan qaab ka gudbo lacagtan GBP USD waqtigan uu yar awgiis iyadana waxaan ka sugayay waxa weeye dabcan flag inayna situation leeyihiin yani dabcan kadibna all the way ay up u laabato
ay tagto the beginning of the correction طبعا waxaa dhacay hadda correction structure kaas kadibna mise all the way way samaysay dabcan lacagtaasi soo oo qaabkaan u forecasting garanay noqotay haddaan laabto dabcan wadsana lacagta zaidka quruxda badan waxaan idhi dabcan halkan ay correctionkeena ku jirto way dheeraysan kartaa dabcan way dheeraysatay haddana all the way way soo daadatay okay marka faa'iidaysan taas waxaan gaaday waxa weeye markay soo jebisay naturalkan maxay ku timaadaan ogaaday dabcan waxay ka bilowday correction structure dabcan correction structure ayay bilowday kadibna all the way way sii daysay waan ogaa in ay tegayso trailinkan ama nitralkan inay buuxsanayso so way buuxsatay dabcan inkastoo aysan buuxsan caadi ahaan haddii la eego halkan viri meeshan waxaa ka dhaca wax all the way way jebisatay all the way haddana all the way way usoo laabatay dabcan meelahan ay ku saartay 0.9% 0.97% laakiin nitralki way targetkii way tagtay dabcan lacagtay bas aniga waxaa sameynaya waxbaa trading stop loss oo mar waliba stop losskayga wax soo qaaday anigoo yani siyaadinaya wax laho yani profitkayga ama percentagekayga dabcan mar waliba waa muhiim inaad soo rartid yani maxaa lahaa stop losskaaga because waxaa arkaysa dadka qaarkood dad lacag bay galeen dabcan lacagtaas waxay sugayaan ilaa inta targetka tegayso markaasay keenayaan so waxaad arkaysaa lacag u dhaqaaqday wax laho targetka uu ahaa 6% uu ahaa haddana iyagoo caadahaan markii la eego 4% u orday markii 4% u orday waxay keensada wax laho stop losskoodii yani pre-given waxay sugayaan inta targetka ugu dhacso means yani target way leeyihiin qaabkay stop losska u dhigteen bayaguna waxay dhigteen wax la target laakiin ma aysan u gaarin يعني 5% 6% waa soo from targetkooda 5% intay orday bay haddana soo laabto briefing ku saartay taasi waa wax mataqaanaa macquula ma aha because suuq kuu orday waxa la 5% kaba soo qaad haddii stop losskaagu ahaa maxaa la dhahaa 20 buu ahaa yani suuq kuu orday maxaa la dhahaa 5% boqol buu kuu orday mar waliba waa inaad stop losskaaga aad dhigan kartid meel laga taxadari karo dabcan sababtaan dhigtay waxa weeye halkan waan ogahay in haddii suuqu sii socdo halkan oo kale structurekan oo kale dabcan all the way up aaday retracement kusoo samayn doona laakiin maxaa dhacay all the way meeshan waxaa ka dhaca waxa laho volatility suuqa badatay dabcan kadibna all the way waa la cunay all the way waa la saaray kadibna waa la sii socday mini suuq jadis ku sii socday laakiin waa layga saaray aniga that's it okay lacagtan waa lacagtaas dabcan haddaan u gudbo lacagta xigta lacagtan waa USD ka dabcan lacag aad u qurux badan bay ahayd structure ka sugaynay tight flag ama ha ahaado large tight flag ama ha ahaado wax loo small tight flag dabcan kuraba ha ahaado waxaan ka sugaynay waxa weeye structure qurux badan na siiso dabcan maxayna siisay marka haddii aan dib ugu laabto jaartiga dabcan waad u jeedaan lacagtan maxaa dhacay halkaasay joogtay dabcan way soo dhacday lacagtani all the way waxay timi dhowr hoose structurekana ka samaysay meeshii all the way abay aaday haddana waa lagu soo laabtay waa lama sii bixin trailerka bartana war kor saarna waxaa la sugaya hal retracing lagu soo sameeyo kadibna maxaa dhacay all the way waa lasoo jabiyay trailerkiiba means lacagtaas aniga aanan gelin badan because sababtan ugu waxa weeye halkan markay joogto oo kale dabcan waxaa sugaya waxa weeye in lacagtan structure saddexaad ee halkan yani ka samayso dhabar yani maxaa lahaa tweeto saddexaad kadibna all the way ay high probability noqoto sidoo kale sababta ugu cabsida waxa weeye halkan waxaa ku jira waxa laga fiiri structure ka dhismaysa active halkan waa shoulder here shoulder refatada inay double bit hoose samayso ayaan ugu cabsinayay lacagtan sababtan ugu waa fahmay here shoulder refatada inay samaysa cabsinay because in ay halkan structure kan ay best kadibna ay all the way soo dhawaan lacagtan uga baqay sababtaas aan gelin mar waliba lacagtan structure aad u rabtid uu structure kale kaa muuqdo means labada structure waa inaad iswaafaqi karaan haddii head and shoulder yani inverted uu ahaan lahaa kabsoo qaad kan oo kale head and shoulder inverted hadduu ahaan lahaa oo kale kabsoo qaad head and shoulder inverted hadduu ahaan lahaa means oo yani jihada abigu suuqa u jeedinaya means waa banqa haddoo kale fiiri halkan oo kale fiiri maxaa dhacay meeshan head and shoulder inverted acted abaa laga sii sugaya so maxay tahay jihadada guud up way
muxuu sheegaa structure-kan app means waa inaad iswaafajin karto wax loo structure dabcan lacagtaasi waa lacagtaas insha allah waxaan rajeynayaa inaan soo dhigi doono video badan oo aan suuqan aan ku taxliilin doono yani jaartiga dhex geli doono insha allah haddaan u gudbo lacagta xigta dabcan sii daysi flag kale ka hormarsi dabcan flaggana heerka hormarsi kan wuxuu noqonayaa same the way lacagtan laga sugayo nitro kaa tagto dabcan lacag aad u qurux badan dabcan زائد qurux badan halkan ku timi qaab correction dabcan pattern within pattern hadana pattern within pattern all the way sii daysi flag kale ka hormarsi dabcan flaggana heerka hormarsi kan wuxuu noqonayaa same because pattern kan weyn iyo pattern ka daswiftid you know here hadda meesha lacagta marayso waa here halkan oo kale hadda ka tusaale qaadatid adaas burburtid ama combine ku samaysay labada pattern dabcan lacagtan meesha marayso waatan halkan waxaan ka sugaynaa waxa weeye flag all the way ni absiyaad insha allah farajin waiting waxay kaloo samayn kartaa lacagtani hadda impulsive ku socotaa dabcan inay correction bartan ka bilowdo oo ay trailing ka correction ku tagto kadibna nightfall kan ay itimaado halkan kadibna all the way bartaa laga push kariyo dabcan wax waliba ay samayso dabcan mar waliba update ka qaado lacagtan baya kurta lacagtan all the way waxa ka raadsanaysaa shaacaba abaan ka sugaynay laakiin correctionkiisii badasay dabcan macquul purple in trailing kan ay tagto dabcan correction weyn ay bartan ka samayso structure-kan hadda samaysa dabcan qaab kale ku socotaa asbuucan waxaa laga rajeynayaa insha allah hadaad eegtid lacagta dib u ilaabtid kadibna all the way ay sii dhaco bas halkaasay joogtay dabcan halkaa markay tagtay maxaad ku dhaqday correctionkaad ka sugaynin bay soo dhacday all the way waxay timi waxa laho halkan haddana jabsatay haddana correction kale dabcan structure weyno yani reversal ay noo samaysay baan dhihi karnaa haddaan jaartiga dib ili tuso dabcan jaartiga waa kan xaggaas xagganay joogto markaan falanqeynaynin correction bartan ka sugaynin inay sii dayso maxaa dhacay in reversal pattern ay bartan ka samaynayso insha allah isbuucanna insha allah aan soo diri doono waxa la dhaho qaabkan lacagtan uga faa'iidaysan lahayn insha allah lacag aad u qurux badan weeye insha allah iyadana jiha aba laga sugayo insha allah waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iiday dhammaan asxaabta qaaliga insha allah waxaan rajeynayaa inay anfici doonaan yani dabcan resultigan iyo weliba yani qaabka yani tradada loo qaato qaabka yani tradada iskaga daro yani iskaga dayo reasonka la qaato waxyaalahaas insha allah ka faa'iiday ma rajeynaya insha allah waxaan rajeynayaa inaan soo badin doono videoyaasha dabcan hadda isbuucan aan soo dhigi doono waxa laho shanta lacagood yani isbuucan raba inaan ka tirigeliyo dabcan insha allah aad ka faa'iidaysan doontaan idinkana waxaan rajeynaya insha allah inaad channelka sii share geliysaan dabcan si asxaabta kale ay sii gaaraan dabcan asxaabta kale u baahan falanqayntan iyo waxyaalahan dabcan insha allah waxaan rajeynayaa insha allah waxaan furi doonaa isna telegram kale oo aan isku wadaarsan doono dabcan lacagaha anagoo samayn wax la discussion ama yani qof waliba dee wax laho maxaa lahaa erihiisa insha allah khayr baan rajeynaya insha allah video ku xiga insha allah noqon doonaa isbuuca yani falanqaynta isbuuca waxaan rajeyn doonaa insha allah inaad sii share garin doontaan janalkan dabcan si asxaab badan aan u helno dabcan oo ay uga faa'iidaystaan yani falanqayntan iyo weliba cilmigan insha allah bixinayo sida khayr baan rajeynaya asxaabta qaaliga waa inoo